أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه أدبان الصلاة بجودهان شعب الرئيس سومالان يسحافة سومالان إما ضحبنان إن وحنوين ما ننتي شيء طوله إن جرانك عقال نشر إيربوت لقى إري أما لقى سودريري لبي أفرت شغالة كوسم مدودي أي سومالان شرتي سجالة كصناعة كشيقيني أما كهول قليل arrimaha duulimaadyada ee Soomaaliland iyo ciidan international airport iyo Berbera airport run ahaantii shaqaalaha shaqada la eriyay la dareeriyay waxay ahaayeen shaqaale lagu tabcay oo xirfad sare leh waxa ahaayeen shaqaale aqoon aad u xeel dheer ku leh in arrimaha aviation-ka waxay ahaayeen shaqaale helay tababaro caalami oo international kuwa gudeed iyo kuwa geeyga Afrika ah run ahaantii shaqaalahaasi ma ahayn kuwa si fudud loo eriyi karo ama loo direerin karo ama ahdir la iska oran karo in soobax waxyaabaha keenay taas sababta keentayna ee ugu weyn waxa weeye waa mas'uuliyad darro iyo sharciyadii oo lagu tumanayo in resource-ka inta leeg si ahdir looga farxasho oo sidii la doono loola dhaqmo oo xaqooda xuquuqdooda inta meel looga dhaca waxa keentay waxa weeyaan in waa sharciyadii oo laga baxay si waxa jira arrimo intaaba ka waaweyn kana muhiimsan haddii aan qodobeeyo koobaad waxa weeye arinta hawada waxaynu ognahay gibi ahaanba dalkii 60kii la isku oran jiray in Soomaaliya oo Soomaaliland xilliga ka mid ahayd kana gooday 1990kii in hawadiisi ay qaadatay dawladda federaalka Soomaaliya xamarna lagu maamulo su'aasha koowaad ee maanta aynu doonayno inay uga jawaabaan qoladan dawladda kulmiye ee uu hogaamiye Muuse Biixi waxa weeye permission-ka cid ay maanta ka qaataan ama ay siiyaan waa xamar diyaaradda maanta Hargeysa ka kacaysa amarkay ku kacaysay kii ku dageysay intaba waxay ka qaadataa waa xamar iyadoo xamar aan laga maarmay oo emailada iyo telefoonadaba loo dirayo oo xamar la xiriirayo oo information xamar laga qaadanayo waa maxay sababta shaqaalihii muwaadiniinta ahaa ee halkaas joogay ee xaq iyo xuquuqda lahayn muddo badan ka shaqeynayay loogu diiday garoonka waa su'aal mudan in laga jawaabo waxaan filayaa inaan ciiditaasi ka jawaabi karin run ahaantii shaqaalahaasina dhammaantood ka uu shaqeeyo ka kooban 70 waa reer Soomaaliland haddaynu eegno dawladda Soomaaliyana raaliba kama ahaba dad aqoonta iyo xirfadda leh oo reer Soomaaliland oo arrimaha aviation-ka ka shaqeeya koonfur iyo xamarba laga ma jeclay eriskii maanta eriyeen bay kuwaasna ku farxayaan taasi waa taa talabaada kale waxa weeye oo iyaduna sharci darro weyna oo ceeba oo foolxumo ah in madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo wuxuu ugu bixiyay xeer nidaamiye adeegsanaya in sharciyadii uu ku tunto 2014kii baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu ansixiyay xeerka hay'adan duulimaadyada ee Soomaaliland xeerkaasi wuxuu dhigayaa inay ka kooban tahay hay'adaasi 5 xubnood oo commission ah oo leh maareeye iyo maareeye ku xigeen iyo 3 xubnood oo la shaqeeya iyaga taa uu ka baxay madaxweynuhu sharciyadiina uu ku tuntay wuxuu magacaabay agaasimo mana wada geli karaan meelna ma soo wada mari karaan maareeye iyo agaasimo taasi waxay keentay agaasimihii 18 cisho magacaawna inuu maanta isagu shaqaale iriyo inuu musuqmaasuq baahsan sameeyo wuxuu wataa gaari Land Cruiser oo cusub oo baraada ah oo gudda qadaraasada aan la marin oo maxay tolo $300 ama ku dhow ama ka badan ba cid allaaliye cid waxa uu kula xisaabtamaysana ma jirto taasi waxa kale iyadana jirta masarrada maareeyaha hay'adda duulimaadyadu horta waxay u sheegaynaa shacabka reer Soomaaliland inuu yahay shaqaale u shaqeeya ekaawo oo hawlgaba oo bisil ka qaata inaguna aviation-keeni waxaynu dhahaynoo maamulo nin daalay oo retirement oo kuwiinu sahaysanay ay lacag siiyaan retirement oo ku qaadanayo bal adigu mustaqbalkiisa ka waran dadka shaqadoodii loo dirayo dad beesho soo hawlgabay iyana taasi waa taa waxyaabaha aynu sheegi karno waxa kamid ah shalay tole ceeb ba ka dhacday garoonka in shaqaalihii lagu yiraahdo emailladii xamar aad ku xiriiriseen keena baa dhacday oo waliba askar loogu yeero oo loo hanjiro haddaan qaar kood baxal la xidhin si ciwaanadii emailladii looga qaadano RRU loo soo dirin ana taasi dhicinba waayo shaqaalaha jooga ciidan international airport ee la eriyay waxa haddana laga doonayaa emailkii xamar lagu la xiriir lahaa sababta loo eriyay ugu weyn waxa weeye xamar baad ka mushahar qaadataa labadaasi ma aha kuwo isqabanaya guud ahaan markaynu eegno siyaasadda Soomaaliland iyo habkan maanta dalka loo maamulayo waxaad moodaa inaynu si weyn hoos ugu socono raadkeenii baynu dib u raacno
arrimahan aviation kana ka xisbi wadani ahaan in badan baan ka hadalnay oo ka dignay oo sariyo hoos iyo cod dheer ba ku sheegnay cid baa laakiin si naga dhageysan dhaxan jalaaday dhag baan shaaq walaysi cid walba taasi waa ka marag maantana waxa weeye Soomaaliland waxa ugu yaray qaban kartaa waxay markii hawadii difaacan kari weeday ay maamulan kari weeday shaqaalaheedii muwaadiniinta inay tiradaha shaqeyneen ka soo baxa madaarka waa itaalal ku dhigay halkaas iyada itaalkeedii taagan yahay waa halka ay ku eeg tahay dadka shaqada u hayay shaqada u diratay xukuumadeeduna waa dadka musuqa sameeyay iyagoo aan bil joogin iyo dadka retire-ka ah ee hawlgabka ah weeye marka waxaad moodaa halka in mustaqbalka maanta aynu leenahay uu yahay runtii mid aad u foolxun waxyaabaha dhici doona waxa kamid ah iyaguna inagu soo socday maanta aynu halkan ka sii digayno in gabi ahaanba diyaaradaha caalamiga sida Ethiopian Airlines iyo Fly Dubai iyo kuwa la midka ah ee garoonkan cigaal maanta isticmaala in si toos ah loogu wareejin doono oo la oran doono xamar kaalaya soo fadhiista diyaaradaha jada oo Soomaaliya gudaha dadka u kala qaada ayaa dadkiina in macbiisha ah Hargeysa qabanaya ay raaci doonaan waxyaabaha kale taa ka sii weyn waxa kamid ah inuu hore iyagana u dhacday xataa garoonkani ma laha wax alternative ah oo garoonkan hadii maanta xaaladi ku timaado kii aanu isticmaalnahay waa ka berbera waa tii imaaraadka lagu wareejiyay iyagana ilaa maalintii la wareejiyay ilaa maanta wax inooga soo noqday ma garan karno wax inoogu bedelayna ma garan karno kaasoo kaliya nagu haray kiina oodan taasoo ku jira waa shaxda tataala waxaanan anigu u maleynayaa ama aan u aragnaa inay xukuumaddu kula socoto waxaan hadda socda dawladda federaalka Soomaaliya waxa kale iyaduna jirta in wiiga soo socda uu shirka dhici doono magaalada Nairobi ee dalka Kenya shirkaasi wuxuu dhaxmari doonaa hay'adda ECAO iyo wasaaradda duulista hawada iyo gaadiidka ee Soomaaliya axadda la doonayaa in attendance-ka la soo xaadiro la wada yimaado isniintana uu furmaya arrimahana laga hadlay halkaana wax rool kuma lihin saaseen uga maqanay tanina waxay muujinaysaa in khibradii dunida oo dhan sidaa uga maqnaano wax walibana tacab iyo dadaal ay ku yimaadeen madaxweynuhu hadii uu maanta tala qaadanayo halkan tan uga soo jeedinaa gabagabadii waxaan leeyahay madaxweyne shaqaalahani waa kuwii aqoonta iyo xirfadda lahaa waa raggii soo celin lahaa maanta hawadan sababta kaliya maanta hawada lagu soo celin karaana waxa weeye inaynu soo iibsano qalab casri ah oo Indian Ocean-ka iyo hawada sare lagu la xiriiri karo oo sida xamar loogu maamulanayo aynu Hargeysa uga maamulno waayo waxa laga baxay heshiiskii Istanbul qodobkiisa 6aad ka soo dhigayay in hawada laga maamulo Hargeysa iyo Muqdisho kaliya lagu wada hada qalabkii loogu talagalay Hargeysa in la keeno baydhaba la geynaya iyana waa dhibaatooyinka kale jira sida markay tahay waxaynu u baahanay inuu iskeen Soomaaliya qiimo jaban baa laynaga siinaya lacaguhu si qaldan baa inooga baxaan inaynu soo iibsano qalab aynu ilaa Indian Ocean-ka iyo hawada sare kula xiriiri karayno inaynu diyaaradaha routes-keenu siin karno inaynu la hadli karno taasi markaa waxay keenaysaa in hawadani ma garanaysaa ay khalkhal gasho oo Hargeysa xamarba laga maamulo waxa dhici karta marka ay gacantii ECAO dib ugu noqoto halka blacklist lagu galiyo si dhaba marka la isku yimaado loo wada hadlo ummadda deetiyo dunidaba loo sheego in Soomaaliya waxan ay afduubatay sidan maanta aynu ku soconana si aynu ku sii socon karana maahe madaxweyne meel kasta qayla ka taagan ee bal dadkaaga iyo shacabkaaga iyo ummadaada u dhagan geesinimadu dabacay ku jirtay